dadweynaha reer Boorama ayaa maanta dareen kala duwan ka bixiyay diiwaangelinta layo inay dhawaan ka qabsoonto dalka Somaliland waxaana dadweynuhu tilmaameen in xukuumadda Somaliland ay ku taagan tahay dariiqadii looga baahnaa in qof waliba uu helo diiwaangelinta dhalashada madaniga waxaana dadweynuhu ay tilmaameen in xisbiyada mucaaradku ay yihiin aan danaynaynin inuu shacbiga Somaliland helo waxaana dhalinyaradu ku hamiyayaan sidii ay u heli lahaayeen kaarkaasi oo ay ku tilmaameen inuu yahay kii aqoonsiga dadka reer Somaliland ku heli lahaayeen dadweynaha reer Boorama oo aragtiyadoodaasi ka hadlaya waxa hadaladoodii kamid ahaa waxaan taageersanahay diiwaangelinta dalka laga sameeyo taasoo muhiim u ah shacbiga dalka iyo dawladda madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland oo lagu ambaleynayo diiwaangelinta oo qabanayo iyadoo xagga nabadgelyada xagga tirada xagga maxayada codbixinta xagga doorashooyinka dhammaan ay anfacayso waana waqti loo baahnaa madaxweynaha waxaan ku leenahay jiro joog diiwaangelintu wanaagsan tahay waana soo dhaweynay aad bayna u saxsantahay soo dhawaadaan aan leenahay diiwaangelinta madaniga aad iyo aad baan u taageersanahay aad iyo aad waa sumadayadii jiritaankayagii ummadii haddii aan lahayn sharci loogu garto oo ummadaha laga garto ma jirto maamusha dawladda looma daba joogsan karayo cid kale dawladda ummadda ka mas'uula iyada maamusha cid kale laga tashanay waana raacsanahay waana ogolahay waxaan leeyahay xukuumadana talaabo iyo horumar wanaagsan bad qaadeen halka ka wada guuleysteen leeyahay guuleysteen diiwaangelinta madaniga waxaan aragnaa inay tahay muhiim oo loo baahnaa waxaan isleenahay runtii deeso muuqato waddanka maalmo ka dambaysa waxa uu sii kordhay in dadweynahan laba loo kala jibeen ma waa qaadanaynaa iyo qaadan mayno waa muwaadiniintii reer Somaliland baana ma jigjigaal taysara u doonaayo mustawaqe waxaanu qaadanaynaa kaarka Somaliland ay ku qoran tahay ee muwaadinimadu ku qoran tahay cidnaba ma diidan diiwaangelintu muhiim bay u tahay qof kasta oo muwaadina waa sharciga kaga duwanaan lahayn ummadeena waxaan u arkaa guul aad iyo aad u weyn waxaan dadka reer Boorama iyo dhammaan Somaliland ku boorinaya inay fursadan qaaliga ka faa'iideystaan waxaanu helaynaa aqoonsi cad oo qof walba laynagu aqoonsanayo qof walba oo sharci daacado kuna uu helayo marka waxaan ku talinayaa baan oran lahaa intii maqlaysa ambay arkaysa fadlan ka faa'iideysta barasaabka gobolka Awdal Abdo Ahmed Ayar ayaa isaguna faahfaahin ka bixiyay diiwaangelinta iyo faa'iidada ay u leedahay bulshada waxaana uu carabka ku dhuftay in tani ay tahay aqoonsiga dadka reer Somaliland isagoo arrimahaas ka hadlayana waxa uu yiri xisbiyada mucaaradka ma qabo inay diidan yihiin waa laga yaabaa doodoodu inay si kala tahay oo ay si kala iyagu dhinac kale ka eegayaan laakiin qof kasta oo muwaadin oo mas'uul ah oo aan u gargaarayn cadow shisheeye oo aan la adeegsanayn wuu kursan yahay dhalashadu inay waajib tahay oo ay shay waajib ku tahay muwaadin kasta inuu qaato waxay tahay aqoonsi gaar ah inay noqonayso waxaan bulshada leeyahay dhalashada ha la qaato ha la isdiiwaan geliyo waa caafi